inta aadan muuqaalka daawan waxaan ka codsanayaa kanaalka haddii aad ku cusub tahay taawa calaamadda subscribe-ka ee nagu soo biir sidoo kale waxaad furtaa gambaleelka si uu kuu soo gaaro video kasta ee ugu dambeeya aanu kanaalka soo gelinno waad mahadsan tahay. أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لولالكين آدم نور حسن waxaad ku soo dhawaateen kanaalkana muuqaal production. insha Allah maanta barnaamijkan adeeleen waxaynu wada application-kan wuxuu ku sahlayaa internet-kaada duu culays uu ka yahay internet-kaada speed-kiisa aad ku dheereysan kartaa. waa application VPN waaye virtual private network. waa application-kii ugu fiicnaa VPN aan arko marka waan idin la wadaagaya idinkana si aad ugu faa'iideysataan application-kan. marka waxaan ka codsanayaa haddii uu jiro mid kamid ah asxaabtaada oo xiiseeya barnaamijyada aan ku soo gudbino kanaalka sida video editing-ka, Android apps-ka iyo graphic design-ka inaad ugu yeertid kanaalka si ugu faa'iideyso barnaamijyada aan ku soo gudbino kanaalka. anagana waxay noo tahay taasi dhiirigelinaya noo tahay. hadaba maanta application-kan ayaanu baran doonaa insha Allah. application-kan aad u jeedin waa VPN waxaa ku qoran 111 ayaa ku qoran. application-kan wuxuu ka caawin doonaa internet-ka speed-kiisa haddii uu low ka ahaa internet-ka speed-kiisa. aad waad u jeedin ani waxaan isticmaalayaa 3G aan isticmaalayaa H+ ayaa ku qoran 4G ma ahan. waxaan u baahanahay marka anoo 3G aan isticmaalayaa H+kan sidaan rabo inaan YouTube aan u daawado. marka application-kan ayaa iga caawin doona aad u jeedin 111. hadaba application-kan si aad u la soo degtid Google Play Store-kaada aad soo furaysaa. qaybta searching-ka kore waxaad ku qoraysaa afar mar ayaad waxaad ku qoraysaa 1111 ama 111 ayaad afar mar ku qoraysaa. kadib searching ayaad ku sameynaysaa. searching markaad ku sameysid wuxuu ku keeni doonaa VPN-kan ayuu ku keeni doonaa 111 faster and safer internet midkay ku qoran tahay midkan aad u jeedin ayuu ku keeni doonaa. application-kan waxaa la update gareeyay October-ka hadda aanu ku jirno 15-teeda ayaa la update gareeyay application-kan. sidoo kale application-kan dadka comments-ka ka soo dhiibtay ama ka soo bixiyay application-kan aad ay u faalinayeen dhamaantooda waan soo dulmaray waan fiiriyay. marka application-kan waa application aad u fiican. rate-kiis wuxuu wataa Google Play Store-ka 4.5. marka application-kan la soo deg application-kan aad ay u fiican yahay. hadaba waxaan u gudgal doonaa qaabka markuu ku soo dego aad u isticmaali lahayd. application-ka markaad soo download gareysid waad furaysaa. markaad furtid application-ka si tan ayuu ku keeni doonaa. gooreen waxaad ku sameynaysaa si aad u isticmaashid waxyaabo permission ayuu ku soo weydiin doonaa. kadib markaad ka soo gudubtid qaybtan waxaad ku dhufanaysaa connected ay ku qoran tahay hadda connected ayuu yahay. qaybtan ayaad ku dhufanaysaa. markaad ku dhufatid qaybtan sare ee statuska telefoonka meeshan ayaa waxaa ku soo fulmi doono inuu VPN ku xiran yahay telefoonka uu cadeynayo furahan ayaa ku soo fulmi doono. kadib tusaalehan waxaan soo gali doonaa application-ka inuu si fiican u shaqeynayo in kale aynu ogaanaynaa. waxaan soo booqanayaa YouTube-ka aan soo booqanayaa. YouTube-ka markaan soo booqdo hal muuqaal ayaa waxaan ku sameynayaa tusaalehan gabartaan oo kale aynu bileen dhahaynaa. hal mar kaama istaagi doono muuqaalka idil waxa waaye internet xawaariis waad u jeedin. qaybtan markaad fiirisiin hore muuqaalkan hadda wuxuu soconayaa 11 daqiiqo xitaa isma soo gaarayaan white-ga uu cadeynayo application-ka internet-ka speed-kiisa. aynu ka gudubno muuqaalkan oo ku xigo markaan soo furo waad u jeedin wireless nama isticmaalay waxaan isticmaalay H+ isticmaalaya. hal marna kaama istaagi doono internet-kana waad u jeedin aan filaya. marka application-kan saaxiib yaal aad ay u fiican yahay. application-kan isleeyahay bishan October application-ka ugu fiicnaa aan arko. marka la soo dega haddana midkan kale muuqaalka kale markaan daaro waad u jeedin sida rabtid ayaad u daawan kartaa. marka saaxiib yaal application-kan la soo dega application-kan aan jeclayso marka inaan la wadaago walaalkeen Aadam Nuur Xasan oo idin leh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.